Salaamu calaykum daawadayaasha qiimaha badan. Maanta dhacdadeenu waxay ka hadlaysaa nin la oran jiray Id oo deganaa gobolka California. Ninkan ayaa waxa uu ahaa mid jecel ku safarka iyo dalxiiska meelaha buuraha ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu go'aansaday inuu u baxo safar ka mid ah safaradiisii, isaga oo markaa rajeynayay inuu safarkani ahaanayo mid la mid ah safaradii hore. Maalintaas ma uu qaadan wax sahay oo ku filan ama sahay badan, sidoo kale ma qaadan dhar fiican ma qaadan oo dhaxanta uu iskaga celiyo. Sidoo kale maalinkaas wuxuu ka tegay khariidadiisii. Ninkani wuxuu rabay in uu masaafo 500 mayl ah intuu tago ka soo noqdo. بدأت الرحلة من waxa uu bilaabay safarkiisii. Gelinkii hore oo dhanna waxa uu ahaa mid soconaya. Markii uu dhammaystay safarkiisii, waxa uu yimi meel buur ah si uu ugu qadeeyo. Markii uu qadadii dhammaystay, wuxuu isku dayay in uu raadkiisii raaco oo dib u noqdo, laakiin muu helin raadkiisii. Wuxuuna yaqiinsaday in uu lunsan yahay. وبعد نزوله من أعلى منحدر القمة أدرك أنها الطريق الخطأ ولم يأتي من هناك أبدا. قرر محاولة تشغيل هاتفه والاتصال بأحد ما طلب للمساعدة، ولكن هاتفه الخفي wuxuu isku dayay in uu moobilkiisa shito si uu u waco cid caawisa, laakiin moobilkiisuna muu shaqaynayn ateeno la'aan darteed. Ninkan wuxuu dareemay in uu ku sugan yahay meel saxare ah. Habeenkii markii la gaadhay, wuxuu isku dayay in uu toosh shito oo kor u ifiyo bal si uu u arko qof uun, laakiin cid aragtay may jirin. Habeenkiina halkaas ayuu u hoyday. بعد استيقاظه في صباح اليوم التالي الموافق للسبت حاول أكل بعض التمر، ولكن فمه كان جافا، لذلك لم يستطع مضغه فقام برميه كما حاول شرب بوله. Aroortii markii la gaadhay oo uu soo kacay, wuxuu isku dayay bal in uu xoogaa timir ah cuno oo isku qabto si gaajadan iyo dayacan uga go'o, laakiin muu awoodin inuu cuno sababta oo ah afka qalalnaa harraad dartiis. Wuxuu isku dayay in uu balkaadidiisa cabo, laakiin taasna wuu awoodi waayey. Sidaas darteed wuxuu iska sii watay safarkiisii. Markii uu cabbaar socday, wuxuu arkay geed weyn oo la harsan karo oo caleemo leh. Geedkii ayuu tegey, isaga oo markaas rabay in uu bal xoogaa ku yar nasto. Wuxuuna ahaa muddadii uu halkaas hurday mid ku riyooda isaga oo la jooga xaaskiisii iyo gabadhiisii. Markii uu nasashadii dhammaystay, wuxuu helay geed yar oo caleemo leh. Wuxuu isku dayay bal inuu caleemahaas afka ku qoysto si uu uga helo xoogaa tamar ah. Maalinkii saddexaad waxa uu ahaa mid ku sugan cidladii, isaga oo aan helin wax garab ah. Waxaa soo yaraatay rajadiisii. Wuxuu isku dayay bal in uu waraaq u qoro xaaskiisii iyo gabadhiisii oo la kala oran jiray Hillary iyo Nicole. Wuxuuna waraaqda ugu qoray: waan idin jeclahay, waxaan qaatay go'aan khatar ah, waxaa laga yaabaa in aanan soo noqon. كتابة رسالة على قبعته إلى زوجته وابنته، والتي كتب فيها: عزيزاتي نيكول وهيلاري، أحب كلاكما، لقد اتخذت منعطفا خاطئا وربما قد لا أخرج من هنا. وبينما كان إد يكتب في رسالته الأخيرة وهو يشعر باليأس، فلم يعلم أنه قد تم الإبلاغ. Intaas kadib, xaaskiisii iyo gabadhiisii markii uu muddo badan ka maqnaa, waxay arrinkii la wadaageen booliska, waxaana bilowday doondoonistiisii. Dadkuna waxay ahaayeen kuwo ka raadiya meel walba nolol iyo geeri xaaladda uu ku sugan yahay. Qaar ayaa waxay ku raadinayeen diyaarado, halka qaarka kalena ay ahaayeen kuwo ku raadiya lug. Haddaba
ninkan doondoonistiisa markii ay waqti qaadatay dadkuna ay daaleen dadka qaar waxay ahaayeen kuwa iska soo noqda oo iskaga samra laakiin kuwa markaa rabay inay soo noqdaan ayaa waxay heleen raadkiisii iyada oo ay markaas qorraxduna ay sii dhacayso habeenkii oo dhanna dadku waxay ahaayeen kuwa raadkiisa sii raaca ilaa ay aroortii uga tageen isaga oo meel jiifa oo aan wax dhaqdhaqaaqa samayn muddo maalin iyo badh ah gaajo darteed. يقول كما لو أنني أستعد لجنازتي ثم نام في تلك الليلة وفي صباح يوم الخميس لم يستيقظ في الصباح كما لو أنه فارق الحياة. markii uu dhakhtarka ka soo baxay waxa uu qabtay xaflad weyn oo uu ugu mahadcelinayo dhammaan dadkii ka qayb qaatay doondoonistiisa waxa uuna qoray buug uu ugu magac daray koofiyadii badbaadada حيث قرر تأليف كتاب تحت اسم نجاة القبعة في الصحراء isagoo buuggiisaas kaga digaya in markaas lagu safro kelinimo. intaas ayay maanta sheekadanu ku eg tahay. haddii aad nala dhammaysatay sheekadan oo aad ka heshay ha ilaawin in aad like saarto. isku soo noqod dambe oo xiise leh haddii ilaahay yiraahdo.